Qiyaastii 3,300 oo BC Waqooyiga Afrika waxaa ka furmay diiwaangelinta iyo qorista ilbaxnimadii Faraaciintii qadiimiga Masar ee hore. Mid ka mid ah ilbaxnimooyinkii ugu horreeyay uguna cimriga dheeraa adduunka. Haddaba ku soo dhawaada qaybta labaad aan uga hadli doono Faraaciintii Masar iyo gumaysigii Afrika. Masar, gaar ahaan deegaanka Daahshuur, waxaa laga helaa ahraamta ugu cajiibsan caalamka, iyadoo dhisitaankeeda ay qaadatay muddo dhan 20 sano, iyadoo lagu qiyaaso dhagaxda lagu dhisayna in ka badan 2 milyan oo dhagax. Mid ka mid ah ahraamta Masar ayaa ah midkii ugu horreeyay asigoo ka duwan kuwa kale, kaasoo dhabaha u jeexay dhisitaanka kuwa kale, waana haramka dhanka sare u dhuuban ee sida kuwa kale aan isku dheelitirnayn, waxaana loo dhisay aabihii boqortooyadii afraad ee Masar. Afaafka hore ahraamta waxaa laga helaa sanam kaasoo qayb dad uga eg qaybna dugaag, waxaana lagu magacaabaa Abulhawl. Iyadoo Masar gaartay meeshii ugu sarreysay awood boqortooyo, iyadoona xukuntay Nambiya iyo qaybo badan oo ka mid ah Bariga Dhow. Kadib waxay gashay xilli gaabis ah, Masar waxaa ku soo duulay quwado shisheeye oo ay ka mid yihiin Hyksos, Ashur, iyo kuwii hoos imaanayay taliskii Alexander the Great. Iyadoo boqortooyadii Ptolemaic ay xukuntay Masar ilaa 30 sano oo BC. Ugu dambeynna waxay ku dhacday gacanta boqortooyada Roomaanka, waxayna noqotay gobol Roomaan ah. Iyadoo boqortooyadii Roomaanka ay qabsatay xeebta Waqooyiga Afrika, aagana waxaa la isku dhaafay dhaqaalo iyo dhaqan ahaanba. Digitaanka Roomaanka wuxuu ka dhacay Tunisia iyo meelo badan oo xeebta ku teedsan. Amiirkii ugu horreeyay ee Roomaanka wuxuu u dhashay Waqooyiga Afrika, waxaana lagu magacaabi jiray Septimius Severus, asigoona ku dhashay Laptis Manga oo haatan loo yaqaano dalka Liibiya. Hooyadiis waxay ahayd Talyaani Roomaan ah, iyadoo aabihiisna lagu magacaabi jiray Panic. Afrika waxay martigelisaa qowmiyado iyo dhaqamo iyo luqado kala duwan. Dabayaaqadii qarnigii 19aad wadamada Yurub waxay qabsadeen ku dhawaad Afrika oo dhan. Wadamada Afrika waxay iska kaashadeen abuuritaanka ururka Midowga Afrika oo xaruntiisu tahay caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa. Sanadihii 1884 ilaa 85 shirkii Berlin waxaa lagu shaaciyay gumaysigii reer Yurub ee Afrika, iyadoo awoodaha adduunka ay ka mid ahaayeen Portugal, Faransiiska iyo Ingiriiska. Sanadkii 1900 gumaystayaasha waxay u qaybiyeen Afrika 7 wadan, iyadoo Afrikaanku ay sameeyeen noocyo badan oo iska caabin ah isku daygii lagu gumaysanayay dalalkooda. Waxaana jiray asbaabo fara badan oo kala duwan oo sabab u ahayd gumaystayaasha Yurub inay indhaha ku hayaan qaaradda Afrika, waxaana ka mid ah rabitaan sahmin iyo tartan u dhexeeya gumaystayaasha. Si kastaba ha noqotee, in badan oo Afrikaan ah waxaa soo galay gumaystayaasha reer Yurub marka laga reebo Ethiopia iyo Liberia.